waxaa maanta degmada Buurtile ee gobolka Nugaal si weyn loogu soo dhaweeyay madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf oo safar dhulka kaga soo kicitimay isaga iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo magaalada Gaalkacyo ee xarun u ah gobolka Mudug. Madaxweynaha ayaa lagu soo dhaweeyay Hotel Peace ee degmada Buurtile soo dhaweyn iyo qadasharaf kadib waxaa warbaahinta la hadlay nabadoonadii iyo waxgaradkii ku soo dhaweeyay degmada Buurtile ee gobolka Nugaal. madaxweyne waxaan kugu soo dhaweynaynaa sida gudoomiyaha iyagu u sheegay degmada Buurtile aad iyo aad baa reer Buurtile iyo reer Puntland ugu faraxsan yihiin hogaanka Galmudug oo aad haysid intii hogaanka aad ku soo biirtay magaalada Gaalkacyo oo ay iska galaan Galmudug iyo Puntland waxay noqotay magaalo aad iyo aad u xasilan oo laga dareemay inay dad walaalo ah oo ehel ah oo wax garanaya ay degan yihiin nabadgelyada ka hana qaaday waa kugu bogaadinaynaa waana kaaga mahadcelinaynaa safarkay soo galeen iyo kay ku socdaan Ilaahay waxaan uga baryaynaa nabadgelyo wadanku waa nabad dhibaato ma jirto Ilaahay idankii inaad nabad nooga tagtaan nabadna noogu soo noqotaan baan Ilaahay ka rajaynaynaa. sidoo kale gudoomiyaha degmada Buurtile Maxamed Maxamuud Axmed iyo gudoomiyaha degmada Gaalkacyo ee Puntland Maxamuud Yaasiin Tumey ayaa dhankooda si wadajir ah u soo dhaweeyay madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf. Salaamu alaykum rasuulullah waxaan joognaa Buurtile oo aan wafdi madaxweyne Xaaf oo hogaaminayo oo ka soo baxay saakay Gaalkacyo ilaa iyo Garowe oo socon doono socdaalkaas oo ahaa socdaal runtii wadda rafan la marayay laakiin madaxweynuhu ugu talagalay socdaal nabadeed oo uu rabo dadka soo fiican inuu tuso iyo isdhexgalkii inuu xoojiyo madaxweyne Xaaf oo runtii barnaamijka Gaalkacyo ama nabadeynta ahaa lafdhabartii ku guuleysatay Gaalkacyo nabad ka dhigo dadkana isu keeno saakana wuxuu tusay dadkii oo soo bareeray wadada rafka inuu soo maro waxa weeye inuu dadka tuso oo runtii si fiican loo tuso inay nabad buuxda jirto dadkiina qalbigooda isku soo dhaweeyo aad baa u mahadcelinayaa madaxweyne ku soo dhawow degmada Buurtile anoo ka hadlay afka maamulka iyo shacabka guud ahaan aad baan ugu faraxsanahay inaan adigoo ku socda ka soo boqolay gobolka Mudug noogu yimid degmada Buurtile waxaan ku soo dhaweynaynaa gacan furan waxaan ku soo dhaweynaynaa qalbisan waxaan aad ugu faraxsanahay waqtiga qaaliga inaad ku hakatid degmada Buurtile runtii farxad weyn bay noo tahay madaxweyne. ugu dambeyntii madaxweynaha Galmudug mudane Axmed Ducaale Geele Xaaf waxa uu uga mahadceliyay shacabka reer Buurtile soo dhaweyntii iyo qadasharafkii ay u sameeyeen waxa uuna dhankiisa sheegay inuu yahay oday Soomaaliyeed ujeedada safarkiisuna ay tahay nabadeynta shacabka Soomaaliyeed. mudane gudoomiye adiga iyo shacabka reer Buurtile oo sida fiican noo soo dhaweeyay qadada macaanana siiyay horta marka hore aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa. midda labaad waxa weeye aniga halka maanta waxaan u soo maray nabadii Gaalkacyood baan soo fidinaynay nabadii baan soo fidinaynay waxaan rabnaa ilaa caluula inaan gaarsiino halkaasaan u sii soconnaa ilaahay idankii ilaahay dib damba naguma keeno anugu oday baan ahay oday Soomaaliyeed baan ahay Galmudug kaliya madaxweyne maahi ummadda oo dhan ayaan jeclahay inaan maaragtay anugu jidka Garowe iyo Boosaaso ninkii wax ka dhisay baana eneeda ku taalla Boosaaso ninkii dhisay baana haymoodinina nin iska yimid safarka madaxweyne Xaaf ayaa ujeedkiisa waxa uu ahaa inuu ka qayb galayo shirka golaha iskaashiga maamul goboleedyada oo ah kii afraad oo lagu qabanayo caasimadda dowladda Puntland. Mawlid Maxamed Kooshin warbaahinta SBC degmada Buurtile.